maraakiib sida xoolo gaaraya 122 oo neef ayaa xalay ka dhoofay takada magaalada Boosaaso kuwaas oo qayb ka noqonaya xoolo si istaba jooga muddooyinkii ugu dambeeyay uga dhoofay magaalada Boosaaso. maraakiibta iyo doonyaha sida xoolahan ayaa u ambabaxay wadamada khaliijka xilli lagu guda jiro mooshinka xajka isla markaana xoolo tiro badan ay buux dhaafiyeen maxjarada ku yaala magaalada Boosaaso kuwaas oo uu qaatay shirkadda Jaabiri. agaasimaha guud ee wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdimajid Samata Jaafan ayaa sharaxaad ka bixiyay xoolaha caawa iyo toddobaadkan ka dhoofay takada Boosaaso xilli uu ku sugnaa marsada Boosaaso. caawa waxaad u jeedaan laba markab oo waaweyn iyo waxa dhoofaya iyo 6 doonyood sidoo kale xalay waxa dhoofay hal markab iyo 7 doonyood waxa lagu qiyaasi karaa xoolaha xalay dhoofay 80 iyo 7,000 caawa waxaan qiyaasaynaa inay yihiin 122 maxsharadana waad soo booqateen oo way buuxaan waxaan rajaynaynaa arintaasi inay tahay arin dalka oo dhan horumar u ah haday tahay miyiga haday tahay magaalada haday tahay meelaha aan u dhoofinayno waqtiga xajka ah waana ku mahadsantiin booqashadeena. waxay u dhoofayaan Sacuudiga xoolaha ugu badan waxay aadayaan Sacuudiga xoolaha kale waxay aadayaan Imaaraadka waxay aadayaan Cumaan. Maxamed Faarax waa agaasimaha maxjarka Boosaaso ayaa ka hadlaya dhoofka xoolaha iyo fursadaha ganacsiga Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland ay haystaan. markaan fursad fiican bay noo tahay annaga reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan fursadan qaaliga oo haysano xoolaheennii oo beec helay dhoofko si fiican oo isla jooga u socda maraakiibto maaragtay iska daba socota sida Cabdalla hadda sheegay laba markab baa isu dhinac xiran hadda u jeedaan waa Superstar iyo markab kale Alfa la yiraahdo aan ugu mahadinayna shirkadda Jaabiri xoolaha ay qaadanayaan magaca dowladda Puntland waxay tahay inaan idin sheego takada Boosaaso waa takad caalami ah oo shaqeynaysa waa takad socodkeeda aad u badan yahay waa takad istaraatiiji ah oo ku taala meel istaraatiiji ah. Ahmad Sham, Hon Cable TV, Boosaaso.